qaxootigan isu soo baxay maanta ku hormudaharaad ee ka soo horjoodka xafiiska hay'adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyay UNHCR ee xerada Al-Qaras dadkan ayaa ka mudaharaadiyay waxyaabo ay kamid yihiin waxbarashada caafimaadka iyo waliba raashinka kuwaas oo ay sheegeen in ay si sax u heleen wixii ka dambeeyay xilliga ay dagaalada ka bilowdeen dalkan Yemen saaki galinkii hore maran gaar xeradaas ay dadka ku mudaharaadiyeen ayaa waxay sheegeen dadka mudaharaadayaasha in adeegyadaasi muddadaas dheerba aanay si sax u helin dhowr marna ay sameeyeen mudaharaad caynkan oo kala qaar kamid ah dadkaasi mudaharaadayaasha oo la hadlay SNTV ayaa sidaan u sheegay maadaama anigoo Soomaali aan ku hadlayo magac Soomaaliyeed oo ah magac qaxooti aan ku hadlayo cod qaxooti iyo cod Soomaali ku hadlayo anigoo ah Cabdiqaadir Ibraahim Xaaji ku magac dheer Shaash xerada qaxootiga Yemen ee mas'uuliyadda ee saaran tahay maanta macnaha oo dadkan shacabkan ay hogaamiyoodan ahay iyo xubniyaasheeda oo dhibaatooyin badan maanta macnaha xerada ay ka jirto oo hadda waad arkaysiin buuqa meesha ku jiro iyo markaad macnaha aragtaan waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo in macnaha nala ogaado annagoo ka tirsan xerada qaxootiga Yemen ee Al-Qaras dhibaatooyinkan haasto waxa kamid ah ilmihii hortore waxaan soo galnay 90kii iyo 91dii iyo 92dii ayaan soo galnay qaybaan waxaan ku jirnay Goobeen markabkii lagu dhamaan jiray Goobeen ayaan ku jirnay aniga maadaama ay 92dii aan soo galnay Yemen anigoo shabaab ee 18 jir ayaan soo galay maanta waxaan joognaa Yemen 26 sanadood ayaan joognaa ilmihii halkan lagu dhalay ayaa ku ilmo dhalayaan ilmihii halkan ay tumcina la keenay ayaa ku ilmo dhalan kuwii halkan ku dhashtana ku si ilmo dhalay marka waxaa loo baahan yahay intaasoo sano ayaan Yemen qaxootiga ayaan joognay oo intaas sano macnaha nala xaqeena xuquuqdeena macnaha lagu tumi jiray hooyooyinkeena waa dhibaatooyin badan ay ku sugiyiin jiro badan cudurro badan dhibaatooyin badan odayaasha waa kadalika wiilishi waa kadalika hal cuduro maanta macnaha waxa jirto oo macnaha wiligeed naga baabeen oo la yiraahdo infection cunuga yar iyo ninka weynbo waxa macnaha wadankan ay macnaha ka qaaday infection waxa la yiraahdo dhibaato badan waxa noo geystay 3 sanadood ka horna macnaha nidaamkii macnaha xaqay xuquuqda qaxootiga u leen aan haasanin maanta waxa macnaha dhabarkii wax walba ku haynaa firaashada ma haasano dhulka ismiidka ayaan jiifanaa magacayga waxaan la Yunis Cabdiqaadir Saalax waxa ku noolaa xirada Al-Qaras meesha anaka oo noolgu dhalay dad waxa ahayn meeshaan ku barbaarin faanti maantana alxamdulillah waa ku gabownay oo jeedin garaayeen waxa yeeshan markasta gaaski male raashiik waxa la dhimaa baahiya ku dhiman mustaqbal xumo meeshaan waa ku rafaadnay meeshaan anaka waxa ka tuugeena ina xal nool keenay xirada ay maanta xirada meesha ay marayso horta xiradan marka koowaad xiradan waa ku dhalanay horta inta waa ku dhalanay anagoo waa ku barbaarnay intaasaan kula ekaanay weliba wax nologa qabtay male ama dibdajin ama wax la siiyay ma jirto waxaan weydiisanaynaa wadamada ama caalamka waxaan weydiisanaynaa inuu dib u dajin ama wadankeena ama wadan saddexaad dib noogu celiyay sidii lagu raacsan yahay raali ka aganahay sidii lagu raacsan yahay raali ka aganahay ana risaasta hada roor hoggaanka shubahaya ana risaasta hada roor hoggaanka shubahaya waxaan doonahay in daharuuta noo doda dalkeenu nabada indhaheena doogsadaan dibadda iyo gudaha wadankeena inuu dagaa dibadda iyo gudaha wadankeena inuu dagaa basiinku dilaaca shirkadooyin soo degaan basiinku dilaaca shirkadooyin soo degaan dibad ma ahadeena dal shaasheeya kama dageen dibad ma ahadeena dal shaasheeya kama dageen waxaan ku dakeeyay lahaay dooxadii wacnaad oo dalkaan ku korahan damaha shaq kuma ilaahay waaladaha ilaahow dalaalakeen dadkan qaxootiga ayaa muddo 25 sano ah ku soo noolaa dalkan Yemen mana ahan markii ugu horeysay oo mudaharaad caynkan oo kala ay sameeyaan balse sanadii la soo dhaafay 2016 ayay ahayd markii mudaharaad caynkan oo kala ay sameeyeen balse nasiib darro ma jirto ilaa iyo iminka cid ka jawaabtay cabashadooda Maxamed Koronto telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya SNTV Yemen